الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa raadiyo horyaal codka shacabka Soomaaliland oo aad ka dhageysataan muujada gaaban ee 12 mitir baan lana mid ah 9840 megaha iyo barta internetka oo aad naga dhageysan kartaan dunida oo dhan horyaal.net kulanti aboon dhageysiyaal saacadu waxay soo gaadhay 8:00 fiidnimo waana waqtigan hawada ku kulanno idaacadeen waxayna taxnaan doontaa ilaa 9 fiidnimo haddii ay beedmo balse marka hore aanu ku furanno aayadaha quraanka kariimka a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim صدق الله العظيم ربها نغو انفعو ايدها قرانka kariimka halkaad kala socoteena waa raadiyo horyaal codka shacabka Soomaaliland وعوسين ثلاثة بشنو ay tahay 27 bisha afraad sanadka 2010 barnaamijkeena dhacdooyinkana waxaad maqli doontaan hadii ay boogolaado xisbiga udub oo cadeeyay inuu san diyaar u ahayn doorashada bisha June iyo jawaab adag oo xisbiga kulmiye ka bixiyay xisbiga kulmiye oo maanta xaflad ballaaran ku guddoonsiiyay jaamacadda magaalada Burco gaari ugu deeqay jaamacaddaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan balse marka hore warkii iyo Muuse Warsame Guuleed mahadsanid Saciid xisbiga siyaasiga ah ee kulmiye ayaa maanta gaari seeraf ah ugu deeqay jaamacadda magaalada Burco kaasi oo isla maanta lagu wareejiyay mas'uuliyiinta jaamacadda magaalada Burco munaasabada lagu kala wareegay gaarigan adeeqda ah oo lagu qabtay xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta jaamacadda magaalada Burco gudoomiyaha jaamacadda magaalada Burco Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale iyo gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolka Togdheer Maxamuud Aadan Dheri ee kana mid ah guddiga jaamacadda magaalada Burco oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa aad ugu mahad celiyay xisbiga kulmiye waxaanay tilmaameen in gaarigan seerafka ah ee uu ugu deeqay xisbiga kulmiye uu wax weyn ka tari doono baahidii jaamacadda ee dhinaca gaadiidka waxaana sheegeen in gaarigan dhinacyada lagaga qori doono ereyo muujinaya inuu yahay hadiyad xisbiga kulmiye ugu deeqay jaamacadda Burco isla markaana loogu adeegi doono qaybta xoolaha ee jaamacadda magaaladaasi Burco mas'uuliyiinta jaamacadda Burco waxa kale oo ay sheegeen in aanay mas'uuliyiinta jaamacadda hawlwadeenada jaamacadda iyo ardayda jaamacaddaasi Burco aanay iloobi doonin abaalka xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isagu mas'uuliyiinta jaamacadda Burco guddoonsiiyay gaarigan seerafka ah ayaa hadal uu halkaas ka jeediyay waxa uu sheegay in ay gaarigan ugu tala galeen in wax loogu qabto baahiyaha jaamacadda Burco ee dhinaca gaadiidka waxa kale oo uu sheegay in ay xisbigooda qorshaha ugu jirto inay gacan taageero ah u fidiyaan dadkii ku tabaaloobay roobkii dhawaan ka da'ay dalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye waxa kale oo uu ka warramay xaaladda siyaasadeed ee haatan dalku marayo waxaanu tilmaamay in ay xisbi ahaan diyaar u yihiin in doorashada madaxtooyadu qabsanto bisha June ee commissionku u cayimay waxa kale oo munaasabadaasi lagu kala wareegay gaarigan deeqda ah hadal ka jeediyay xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye ergeyga midowga Yurub ugu qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya oo booqasho hal maalin ku yimid Somaliland
ayaa kulan uu la yeeshay komishanka saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Somaliland ku sheegay in dhinacyadii uu la kulmay ay u muujiyeen u diyaargarowga doorashada madaxtooyada. Mr. George Mark oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa uu xusay in kulamadaasi uu la yeeshay madaxda asxaabta iyo komishanka ay kaga wada hadleen sidii ay u dhici lahayd doorasho xor oo xalaala. diyaargarowga doorashaduna ay si fiican doorashadaasi u heli lahayd. warar ku dhow oo kulanka dhex maray asxaabta siyaasadda iyo ergeyga midowga Yurub u qaabilsan ayaa cadeynaya in xubnihii matalayay xisbiga udub ay soo jeediyeen in aanay diyaar u ahayn in ay bisha June doorashadii qabsoonto, taasi oo ay tilmaameen inay door bidayaan in dib loogu dhigo. hase ahaatee ergeyga ayaa la sheegay in uu soo jeedintaasi xisbiga udub ganafka ku dhufay, kaasi oo uu tilmaamay inaanay jirin sabab dib loogu dhigo doorashada. waxaa kale oo uu sheegay in dhaqaalaha lagu bixinayo doorashaduna uu mudaysan yahay. hadalkan ka soo yeedhay mas-uuliyiinta xisbiga udub ee shirkaasi ka qayb galay maaha kii ugu horreeyey ee waxa habeenkii xalay TV-ga xukuumadda lagu baahiyay hadal uu jeediyay afhayeenka xisbiga udub Cali Maxamed Yuusuf Cali Gurey oo sheegay bisha June inaanay suuragal ahayn in ay doorasho dhacdo, balse waxaa loo baahan yahay buu yidhi in ay commission ku caddeeyaan waqtiga doorashada la qabanayo. waxa kale oo uu sheegay in marka hore ay ka horeyso muddada doorashada in la soo saaro liiskii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo afhayeenka xisbiga udub muddada doorashada loo cayimayo uu shuruud kaga dhigay. waxaanu cambaareeyay ururada bulshada rayidka, saxaafadda iyo xisbiyada mucaaridka oo uu ku tilmaamay afhayeenka xisbiga udub in ay asko qaybinayaan oo aanay muddada komishanku u sheegay waxba ka jirin. waxaa haatan si weyn isu soo taraya in xisbiga udub aanu doonayn qabsoomidda doorashada madaxtooyada ee bisha June ee komishanku cayimay. waxaa kale oo soo baxaya in aanay diyaar u yihiin in ay ku kacaan wax kasta oo ay ku carqaladayn karaan qabsoomidda doorashada. ganacsatada shidaalka ka soo dejisa dekada magaalada Seylac ayaa cabasho xoogan ka muujiyay amar xukuumaddu kaga hor joogsatay shidaalkii ay kala soo degi jireen xeebta degmadaasi Seylac. waxaana sheegeen inay haatan kastamka degmadaasi Seylac ku xayiran yihiin ugu yaraan dhowr gaari oo booyada oo sida shidaalkii ay u soo qaadi jireen dhinaca gobolada dalka kadib markii wasaaradda maaliyaddu diiday in loo cashuuro shidaalka. qaar ka mid ah ganacsatadan oo la soo xidhiidhay Radio Horyaal ayaa sheegay in dhowrkii maalmood ee u dambeeyeyba ay kastamka magaaladaasi Seylac ku xayiran yihiin booyadihii shidaalka ka keeni jiray Seylac, waxaanay tilmaameen in uu khasaare kala kulmeen arrintaasi. dadkani waxa ay sheegeen in ay hore xukuumaddu ugu ogolaatay inay shidaalka kala soo degaan dhinaca dalka Yemen, taasi oo ay doonyo yaryar kaga soo qaadi jireen. ganacsatade waxay intaasi ku dareen inay tuhunsan yihiin in shirkadda Total ay ka dambayso xayiraadan cusub. shirkadda Total oo iyadu kooto ku haysata keenista iyo haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ayaa la sheegay in aanay muddooyinkii ugu dambeeyay keenin wax shidaala, waxaana soo baxaya cabashooyin la xidhiidha in ay ganacsatada shidaalka ka keena meelaha ka baxsan dalku ay cabasho iyo cadaadis kala kulmeen mas-uuliyiinta xukuumadda. halka warkaasi aad kala socotaana waa Radio Horyaal codka shacabka Somaliland. wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in ay labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaaladaasi Laascaanood ku xayiran yihiin ugu yaraan 30 gaari oo xamuula oo sida raashin gargaar oo ay hay'adda WFP ugu deeqday gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya kadib markii maamul goboleedka Puntland uu diiday in gaadiidkaasi dhex maro dhulka ay ka taliyaan. Cabdi Axmed Ducaali oo ka mid ah mas-uuliyiinta gaadiidkan xamuulka ee ku xayiran magaalada Laascaanood oo la soo xiriiray Radio Horyaal ayaa sheegay in raashinkan ay ka qaadeen magaalada Berbera oo ay hay'adda WFP ka soo dejisay kuna sii jeedeen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. waxaanu sheegay in ay dhibaato ka haysato kadib markii maamul goboleedka Puntland uu diiday in gaadiidka raashinka sidaa dhex maro. waxa kale oo uu tilmaamay in ay marar hore kooxa burcadihi qafaasheen qaar ka mid ah gaadiidka sida raashinka gargaarka ee u socda dhinaca gobolada dhexe ee dalkaasi Soomaaliya. waxaanu tilmaamay in iyaga lagula heshiiyey in damaanad qaad sugan ay oo dhinaca ammaanka ah ay raashinka ku geyn doonaan goboladaasi dhexe. waxaanu xusay in ay khasaare ka soo gaadhay kadib markii
la xayiray socodkii gaadiidka islamarkaana waxa uu sheegay inay haatan ku xayiran yihiin magaalada laascaanood waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta hay-adda WFP iyo mas-uuliyiinta xukuumadda Somaliland in wax laga qabto sidii raashinka loo gaarsiin lahaa dadkii loogu talagalay munaasabad lagu caleemo saaray suldaan cusub ee beesha Akisho oo kamida beelaha gobolka Gabiley ayaa shalay lagu qabtay duleedka magaalada Gabiley munaasabada caleemo saarka suldaanka cusub oo lagu magacaabo Suldaan Maxamuud Sheekh Maxamed Sheekh Umar Warfa waxa sida uu noo soo sheegay wariye Mukhtaar Nuux Ibrahim ka qayb galay caleemo saarka suldaanka salaadeen cuqaal aqoon-yahano iyo waxgarad kale oo ka tirsan dadweynaha Somaliland waxaana hadallo ay halkaasi ka jeediyeen Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar iyo Caaqil Cabdi Ciidle Ammaan ay ka warameen qiimaha bulshada ay u leedahay salaadiinta dhaqanka waxaanay hambaliyeen beesha Akishe ee soo xushay suldaankan laga bilaabo maantana suldaankani uu ka mid noqon doono salaadiinta gobolka Gabiley warkii waad ka dhageysanayseen raadiyo Horyaal khiyarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidhay oo caawa nageynta markan iyo haatan ku soo dhawaada dhambaal taxsi oo naga soo gaadhay xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac Cabdullaahi Xuseen Iimaan Dirawal Xasan Cali Abukar iyo dhammaan reer Cali Abukar Cali Salaan Xaaji Ismaaciil Jirde dhammaan dadkaasi waxay taxsi u dirayaan Mujaahid Xasan Ciise Jaamac iyagoo ka taxsiyadeynaya geeridii naxdinta leed ee ku timid hooyadii marxuumad Cusub Guure oo maalintii shalay lagu aasay magaalada Hargeysa waxaanay marxuumada Ilaahay uga baryayaan inuu jannadii ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo shacbiga Somaliland samiriyay imanka Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.